waxaan bilaabanaynaa barnaamijka insha Allah taala waxaan u daadanayna waqtiga oo galab waa in goor gaabanayay inta soo dhaqsateen iyo waqtiga anaga qaadano kala fog marka hore kala geliyeena barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa insha Allah taala ayada quraanka waxaan noo akhrin doonaa macaan saalax runtii macallin Muuse buugan inuu qoro waxay ku qaadatay muddo aad u dheer ku qaadatay labeen badan iyo dhiirigelin badan oo macallin Muuse oo ka helay bahda sportiga ayuu wuxuu ku dhiiriday in uu qoro buugan fitness and growth oo runtii saldhig u ah koritaanka iyo jidhiska carruurta Soomaaliyeed insha Allah haddii ilaahay macallin Muuse wuxuu ahaa professor dhiga physical fitness muddo dheer wuxuu ka mid ahaa macallimiinta jaamacadda la foole hadda wuxuu ka mid ahaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed maadadan physical fitness uu ka bixiyo ilaa hadda ruuxadaa isboorti ah oo soo maray kubadda cagta naadiga gaadiidka iyo xulka qaranka ahaa macallin Soomaaliyeed oo kubadda cagta ah iyo macallin Soomaaliyeed oo ardada noocyada kala duwan dugsi hoose dhexe ilaa sare ilaa jaamacadaha macallin Muuse wuxuu qayb ka ahaa ama uu hogaaminaya magaalada barnaamijka liijin looxaadka qalfiya ee Soomaaliya xilliga kacaanka ee aad caan ugu ahayd taas oo ku mutaystay shahaadada halkaas ka muuqato 1966 oo kacaanka intiisa ka horeysay macallin Muuse oo ka mid ahaa aasaasiyaasha ururo badan oo isboorti ah oo ugu dambeeyay ururka Halyeeyada Nabadda isagoo la soo shaqeeyay ururada Today iyo ururka Somali Legend Charity macallin Muuse wuxuu ka mid yahay dadka isboortiga si gaar ah loogu naanayso oo runtii astaan u ah marka la yiraahdo isboortiga noocyadiisa kala duwan buuggan wuxuu ku saabsan yahay isagaa noo faahfaahin doona insha Allah taala haddii ilaahay yiraahdo balse wuxuu ka bilaabay marka uu arkay uu tegay Talyaaniga marka uu tegay Canada oo yani todobaatamaadkii iyo ku horeeyay runtii oo uu arkay physical fitness-ka carruurta sida ay tahay ka hor maraa waxaan bilownay in odayaasha 70 jirka cayaaraan markay cayaareenna maalinta ugu horreysay waxay bilaabeen inay dhahaan kubadda ay soo dhiibay maxaa yeele kubadda soo socoto asaad ku faayo dhacaya asaa la joojinaya 4 toddobaad kadib waxay bilaabeen inay isgarbiyaan xoogeystaan odayaasha waaweynaha kakilaba inta ka joogo maalinta horeysa dhibaatada way qabeen kadib waa fiicnaadeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام معلم موسى ورطوة مهدسيه وحو نوصو بندقي بوك آد قيمة أولي معناه maxay tahay ma taqaanaa fitness waxa loola jeedo waxay tahay bini aadamka waxa ugu qaalisan oo uu helaa waa caafimaad bini aadamku hadduusan caafimaad helin shaqo ma qabsan karo wax ma baran karo waxba ma samayn karo marka muhiimadda dhan ee aan maanta u fadhino oo buuggan uu ka hadlayo macallin Muuse keenay waxay tahay in la helo bulsho nadiif ah caafimaad qabta shaqo qabsan karta wax walba qabsan kara marka sidaa darteed waxaan ku soo koobaa barnaamijka fitnesska inuu yahay caafimaad waxaan xasuustaa aniga waagaan isboortiga ciyaari jiray annagoo buuma gashan ama isboorti rabna inaan samayno odayaasha markayna arkaan waxay dhihi jireen nimankan waaweyn qaawan maxay yihiin laakiin maanta salaada subax markii la tukado arag waa la wada dudayaa exercise aan la samaynayaa sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay caafimaadka inaga gashay caafimaadku waa muhiim la-aantiisna waa abaar waxaa kaloo muhiima oo si scientific ah loo ogaaday si wax ma taqaanaa qofka bini aadamka markuu ordo ama uu jimicsado ama uu sameeyo waxa fiicnaanaya habka loo yaqaano respiratory system ama hab neefsiga qofka bini aadamka waa ogtihiin oo systemyadiisa dhan waa isku xiran yihiin habka digestive systemka fiicnaanaya circulationka fiicnaanaya marka waxaad ogaataan markaan dhaqdhaqaaq samayno oo aan fitness samayno waxaa ku xiran systemkii bini aadamka oo dhan
markaasna waxaa la helaa marka qofka bini aadamka maskax caafimaad qabta ayuu helaa maskaxdaasina marka waxay hagaysaa